dhalinyaradeenna hadda maanta haddii la weydiiyo warka waran ingiriiska meeqa kooxaa ka dhisan horyaal iyo champion iyo balaayo ciyaartooy iyo haddii la weydiiyo waa sheegaya wuxuu ku leeyahay sanadkan waxaa star xidiga adduunka waxaa sanadkan noqday hebel koobkaas isaga qaaday war xidiga adduunka gaala maahan xidiga adduunka ugu qaalisanaay waa nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam xidiga adduunka ugu iftiinka badnaa xidiga adduunka ugu nuurka badnaa waa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam munaasabadan lagu weyninayo dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee ayaa lagu qabtay dugsiga macalin xasan oo lagu barto quraanka kariimka kuna yaal xaafada Tawakal degmada Gurceel waxaana xafladan qiimaha badan soo qaban qaabiyay ardada waalidiinta iyo waliba macalinka dugsigan waxaana ka soo qayb galay qaar kamid ah macallimiinta dugsiyada lagu barto quraanka kariimka ee ku yaal degmada Gurceel iyo waalidiinta caruurtooda wax ka bartaan dugsigan ugu horeyn ardada dugsiga macalin xasan ayaa goobta ka soo jeediyay nashiidooyin aad u macaan oo lagu amaanay nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee بشر لك البشر محمد بشر لك البشر محمد بشر لك البشر بل هو يغوت بين الحجر بل هو يغوت بين الحجر محمد مفتاح بسم الله محمد مفتاح بسم الله محمد مفتاح بسم الله وبحمد الله مع الخبر وبحمد الله مع الخبر محمد رسول لرب العلا محمد رسول لرب العلا محمد رسول لرب العلا لكافة الخلق بلا نكر لكافة الخلق بلا نكر محمد بعثته عامة محمد بعثته عامة محمد بعثته عامة على العالمين حتى الشجر على العالمين حتى الشجر محمد مولد مكة محمد مولد مكة macallin Cabdullaahi Filfil iyo macallin Nuur Shahaad ayaa iyaguna ku dheeraaday ka sheekaynta nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee sida Sheekh Cali uu sheegay bishaan dhalashadeedii markii ay bilatayba ahbaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam qadiiman wa hadithan waxay bilaabaan inay nabiga u xafladeeyaan sallallahu alayhi wasallam waxaa kamid ahaa hadaladii weynaaye imaamkii weynaaye ibn Hajar al-Qasdalani marka uu tilmaamay ihtifaalka nabiga alayhi salatu wasalaam ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بمولد شهر بولادة شهره صلى الله عليه وسلم هذا اللير أو معنيه سأكجري إسلام كأهل كيسو كمين الزولين إنه احتفاليان إنه كل ميان ولادة بشأ ودشي نبي صلى الله عليه وسلم فرح سنانت يكون فرح سيهين ويعملون الولائم وليموين إي البريال أي سمينيان ويتصدقون بأنواع الصدقات صدقات النوعية ذكر الدون أي بحنيان ووجيالكو ذا يقلبيالكو ذا وفرحت وكسو ظاهريو كما أينين زولين ويري وحل دير أيا احتفالك إن سيدان تلو كلمو وصدق الله بحيو والنبي قال إساق الشاكيو وأمانت النبي قال أخريه صلى الله عليه وسلم وصلق النبي أما نظمها هذا أما نثرها هذا وقاب قبيها هذا أما قاب كلا ترابها هذا إلا قاضو ولي قيد بيسوجه تورشيخ وحيابها مركا فوائد لقاها للشيخ وحو كتل مامي إني آدو بديهين وصندكي مولدك النبي سيب هاي السراء الله ديقو إن أمني ينبتقليو أعدادي لغا نبتقليو
cudurradii iyo aanfooyinkii laga nabadgelayo ayuu ku tilmaamay. waxyaabaha la tajribeeyana ay ka mid tahay. qof la arko marka insha allahu tacaala hadda beledkeennan waxyaabaha ilaahay amniga nagu siiyey waxa ugu weyn waa xafladaha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xuska nabiga iyo sheegsheega nabiga wey sallallahu alayhi wasallam. marka wax hadda laga hadlayo ma ahan ixtifaalka nabigu dada diiday iyo waxaas in laga hadlo la isku mashquuliyo maba ahanba. qofku sidiisaba haddii aynan cadaawad ku jirin oo naftiisa uu ka garsoorayo waxaa la rabaa war ixtifaalka nabiga markii la isku yimaado maxaa la sameeyaa. waa aragtay makaankan ayaa la goglay, salliga nabiga ayaa la akhriyay sallallahu alayhi wasallam, qur'aankii kariimka ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax loogu dhowaado ugu fadliga badnaa ayaa la akhrinayaa. sadaqadii oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam markii uu saxaabigu weydiiyey ayul islaami khayr, islaamka khisaashiisa yaa u khayr badan baa nabiga la weydiiyey. markaasuu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaa ugu khayr badan idcaamu طacaam, inaad dacaam bixiso ood wax sadaqaydo ayaa ugu fadli badan. sadaqadii yaa la bixinayaa, masaakiintii baa la quudinayaa, deriskii baa lagu sadaqaynayaa, caruurtii yaryarkaa ayaa maalintaas nashaad iyo farxad dareemayo oo la marti qaadayaa, sadaqo ayaa la bixinayaa. kelimaad waxbaa nabiga siiradiisa wax la isaga sheegaya, macruufkii baa la isfarayaa, munkarkiina waa la iska reebayaa, waa la ducaysanayaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa la baryayaa. khayrkaasay ka kooban tahay. ilaahayna muxuu yidhi wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun, khayrka sameeya waxaad mudan tihiin haddaad khayrka samaydaan inaad liibaantaan ayaad mudan tihiin. marka walaalayaal nabiga muxamed sallallahu alayhi wasallam sheegsheegiisa iyo siiradiisa inaan ka sheekayno waa wax nagula adoonsaday. maxaa yeelay nebiga haddii aanan baran akhlaaqdiisii si aan diinta islaamka u raacnaba ma garan karno. waxa dhan qofku tilaab kaste salaada maxaa la yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli yuri nebigu, u dukada sidii aad i aragteen ood igu ogaateen anigoo u dukanayo. oo ciddii nebiga aragtana wayba aragtay, ciddii kaleo sidanadoo kalena waxaa na soo gaaray ficilkii mutawaatirka ahaa, axaadiistii baa na soo gaartay oo ka sheekaynayso nebigu sida u dukan jiray sallallahu alayhi wasallam. haddii la soomayo nebigaa lagu raacaya, haddii la sadaqaysanayo nebigaa lagu raacaya, haddii la soconayo, haddii la jiifsanayo, haddii dhar la gashanayo, kulli nebigaa lagu raacaya. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye bad oo kale weeye. maalinkii adduunyo la bilaabo haddii nabiga laga sheekayntiisa la bilaabo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa ay ka dhammaato la wado waa la soo gaabiyaa, warku ku ekaanaya maahane wax la gaari kara ma aha. ilaahay qur-aankiisa kariimka wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiimaa. waxaa lagu baray oo lagu baraa waxaad awal hore u aqoonin. ilaahay fadliga oo korkaada ku tafadulay mid weyn waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala. axad walbaa qadarkiisu intuu la egyahay u tacdiimiyaa wax weyneeyaa. ilaahaygii cadiimaha oo asmaadiisa ay cadiim ka mid aheed waxa uu cadiim ku tilmaamay wax annaga qalbigeenna uu sifay kara ma ahan. axbaabii fillaahi, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay axibuunii aniga i jeclaada bixubbillaahi, ilaahay jacaylka oo uu jecel yahay ugu jeclaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam. nabiga inaanu jeclaano waa arrin oo waajib ah waay culimo allah. nabiga inaanu jeclaano waajibay nagu tahay. muxamadun maxabatuhu waajibun cala alcaalamiina xataa shajari. sheekheennagii caarifka ahay waa kii lahay nabiga calayhi salaatu wasalaam
maxabadiisu waajib waaye caalamiintay waajib ku tahay xataa geedaha. nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa yimaaday nin yuhuudi ah oo raba inuu soo islaamo. markaasuu sayidinaa abubakar sidiiq buu u yimaaday. markaasuu wuxuu ku yidhi sif lii akhlaaqa muxammadin, waxaad ii sheegtaa akhlaaqdii nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi. nabiga calayhi salaatu wasalaam calayhi jalaalatun wa mahaabatun wuxuu yidhi sheekhanagii sheekh yuusuf albaxar wuxuu yidhi wakayfa man qad ra'aakum min haybatin laa yaduubu, qof idaan arkay soosa u dhalaayan buu yidhi. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisa iyo tilmaantiisa marka la sheegahayo waxaaba laga soo nabiga owlaadiisii awowaha ou ahay oo laga helay asxaabta kuwoodii ugu waaweynay nabiga calayhi salaatu wasalaam heyba iyo ay ka heybeysanayaan iyo jalaalkiisa yay nabiga calayhi salaatu wasalaam yay indhaha u dhammaystiri karinba rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ugu dambeyn macalin xasan oo ah baraha dugsigan ayaa kaga mahad celiyey cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan iyo weliba dadkii soo qaban qaabiyey. nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi ixtifaalkiisii iyo markaa dhalashadiisii ayaan isugu nimid. munaasabadda markaan isugu nimid sidaas waaye oo wax badan soo socotay, ama qurxinteeda ha ahaato ama markaa maarata dacaamkii lagu sameeyahay ha ahaato, ama ha ahaato mawcidooyinkii iyo salawaadkii la qaadaya ha ahaato. marka munaasabadaas ayaan ku dhex jirnaa. say u badneed waa noo dhammaatay. culummo aada iyo aada maaragtay qaali u maaragtay na sharaabisay sidii aan rabnay iyo si markaa maaragtay kasii badan ay noo sharaabiyeen. markaan marka gebagabo waa noo waayay haddii alla idmo insha allahu biidni illahi alkariim. anigu ducada iyo waxyaabihii markaa maaragtay mahad celina ayaan ku qoranahay inaan u mahad celiyo dadkii nagala soo qayb galay ixtifaalka nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi, iyo inaan faatixooyinka iyo dadka markaa maaragtay maro dadka nagala soo qayb galay intaasaan ku qoranahay. runtii ayadoo hadda aayadda aan aqrinayay oo ilaahay subxaanahu watacaala uuna leeyahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi. hadda nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi in markaa ixtifaalkiisa ama maaragtay u dabaaldegiisa la iskala soo qayb galaahu ayadaa waxay tahay in khayrkii la isugu tacaawuno oo la isku kaalmeeyo. kii ugu weynaayba waaye. intii nagala soo qayb gashay marka si aada iyo aada aan maaragtay uga mahad celinaynaa. ayaga naftooda iyadoo oo waajib ku yahay in ay markaa maaragtay nabiga ay u dabaaldegaan. annaga ayaa maaragtay makaanka aan joognay ayay si gaara noola sii qurxinayeen, noola qurxiyeen. waa u mahad celinaynaa. marka awalan marka koowaad ilaahay subxaanahu watacaala aan u mahad celinayaa. thaanina waxaan u mahad celinayaa maaragtay dadkii nala xoojiyeen. waxaa waaye culummada ha ahaato, mashaayikhda kala duwan oo ama maadixiinta ha ahaato ama ha ahaato culimmada na wacdiyeen, sheekh cabdullaahi, sheekh maxamuud iyo macalinkan oo macalin nuur iyo sheekha kaloo asoon xiriiriya noo ahay iyo amdaaxda raggi noo qaadaya dhammaantood macalimiintii aada iyo aaday u mahadsan yihiin. runtii uma beegtoobi karno laakiin waan u ducaynaynaa. waxaa intaas markaa maaragtay markaas maxaan u gudbaynaa haddana in aan dadkii dugsileyda ahaay oo soo qalqaaliyey munaasabadan sida quruxda badan usoo qalqaaliyey aan ayagana u ducayno, aan faatixada u marno, aan u ducayno. runtii wax badana iska saareed macnaha munaasabada isu imaadkeedu oo waxaa waaye haddii ay tahay xoolaha ninka ama dhaqaalaha bixintooda ama xirxirka maaragtay meesha lasoo qurxiyey ama markaa maaragtay wax kariska waxyaabahaas qoloba waxay ku qoreed si aada iyo aada ay dadku u soo dadaaleen.